السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ولا قالقة. وحرجينا إن العافيمات قبطان كسو دواد دو channel قصة قف دنتي أو إيميل قبرك كسو دري وقصة عوان كذا يسيد عنيقا أن كسو أخريي وحانا كشيكينا إن شيخة وحونا ليه وحان كسو حكت الشيخ عباس شيخ كلاو اللي يرهدو وحاونا يري شيخ عباس أيو حيوي يري مالين أيو حيصاو عيويل wuxuuna igu yiri waxaa jiray wiil kale oo aan asxaab nahay wiilkaas asaga ahna wuxuu ku wanaagsanaa computerka ama IT-ga yani wiil wuxuu ahaa waxyaabaha si wanaagsan u yaqaano waxa uu aad u jeclaa fiirsashada aflaanta xunxun maalin ayaa wiilkii wuxuu galay website ay leeyihiin kuwa ugu daran kadibna waxay ka codsadeen inuu subscribe saaro si ay ugu soo dhacaan wax walba isu geliyaan lacag ayaana subscribe-ta lagu saarayay oo haddii aad hadda account ka furato lacag yar oo saas u badnayn ayaad bixinaysaa 5 sano ayayna ku soconayaan markay 5taas sano ka dhamaato haddana mar kale ayaad lacag yar bixinaysaa wiilkii wuxuu bixiyay lacagtii yareyd account bay u sameeyeen oo gmail-kiisa iyo password-kiisa waxyaabahaas ay weydiiyeen kadibna waxay u soo direen muuqaalo yani iskugu jira sawiro fiidiyoyo kale iyo wax filimo ay dhigaan isbuuciina in dhowr jeer muuqaalada iyo waxyaabahan loo soo diri doono ayay u sheegeen website-kii isla markiina waxay u soo direen yani fiidiyoyo iyo waxyaabo badan oo isku jiro wiilkii markii wixii uu dadaawaday wuxuu ka baxay gurigiisa oo wuxuu aaday meel dhalinyaro kale oo asxaabtiisa ay iskugu imaan jireen markuu wiilashii kale u tagayna wuxuu tusay muuqaaladii iyo waxyaabihii telefonkiisa ku jiray wiilashaas dhamaantoodna waxay ahaayeen wiilal yani taariikhiin ah oo waxyaabo un xumaan ah saaxiibo ku ah muuqaaladii markay arkeen wiilashii waxyaabihii ay dadaawadeen waxay ku dhaheen niyow adiga waxaa tahay ninaan caadi ahayn xageed waxaan kala soo baxday annagana waa inaad noo sameysaa waxa uu u sheegay in uu alaabtan kala soo baxay website-kaasna lacag lagu subscribe gareeyo wiilashaasna aysan awoodin inay lacagtaas iska bixiyaan asagoo yani u faanayo inuu asaga kana aqoon badan yahay oo nin IT-ga yaqaano oo internetka waxyaabo badan kala soo baxo sidoo kale uu lacag haysto oo muuqaaladaas asaga iibsaday wiilashii kale waxay isjecleysiyeen in muuqaaladan uu saaxiibkood haysto ayagana ay u baahan yihiin markii dambena wuxuu ku yiri ii qoro email-adoodii oo dhan ayuu ka qorqoray wuxuuna sameyn jiray marka asaga loo soo diro muuqaalada ay soo gaaraan ayuu ayagana u sii dardiri jiray waxay sidii ahaataba waxaa ka soo wareegtay 6 bilood kadib wiilkii shil buu galay yani wiilkii muuqaalada subscribe-ka saaray ee loo soo diri jiray ayaa shil galay wuuna dhintay wiilkii markii la aasay maalmo kadib wiilka qisadan ka sheekeynaya ayaa sheekha soo wacay una sheegay in wiil dhintay uu weli muuqaalo u soo dirayo wuxuuna ku yiri markii hore waxaan is iri waa wax intii uusan dhiman ka hor uu soo diray oo ay hawada xanibtay waana iska dhilad gareeyay laakiin markii dambe ayaan argagaxay oo muuqaaladii sidoodii ayay u soo dhacayaan marka la gaaro xilliyadii uu wiilka soo diri jiray waxaana la xiriiray website-kii oo waxaan u sheegay in qofkaas uu dhintay ee ay naga daayaan email-ada ay u dirayaan iyo waxyaabaha ay ka daba wadaan waxayna igu dhaheen sheeg qofka dhintay password-kiisa iyo email-kiisa waxaana u sheegay in aniga aanan garanaynin password-kiisa kadibna waxay igu dhaheen waan ka xunahay ma xiri karno email-kaas waxa uu hawada ka bixi doonaa 4 sano iyo bar kadib maadaama uu 5 sano ahaa 6 bilood uu qaatay 4 sano iyo 6 bilood kadibna account-kan asaga iskiisa hawada uga bixi doono sababta muuqaaladan ay weli u soo dhacayaan waxaa loo maleeyay in wiilka dhintay marka website-ka uu wax u soo diro in uu ku connect gareeyay oo si automatic ah ay ugu sii baxayeen wiilashan kale ee saaxiibadiisa laakiin wiilkan wuxuu u haystaa in email-kan uu qabriga ka imaanayo
waa arrin murugo leh qof meyd ah oo qabri ku jiro in waxyaabo uu asaga lacag ku bixiyay oo xumaan ah ay haddana dadka soo gaarayaan ama ay u soo dhacayaan. Ilaahay ha u dambi dhaafo qof walba oo maanta aan haysanin fursad uu Ilaahay dambi dhaaf ku weydiisto. Nafta laguma tashan karay haddii aad ka shaqayn karin inaad ka tagto sadaqatul jaariya. yacni camal adigoo dhintay oo maqan kuu shaqaynayo. Ha ka tegin waxyaabo dembi ah oo gadaashaa sii socdo. Noocyo badan ayayna noqon kartaa. Qisadan waxyaabo badan ayaan ka baran karnaa waxaana ka mid ah qofka maanta ku dhex jira waxyaabo macaasi ah in uusan isku ilaawin in uu ka toobad keeno oo Ilaahay dambi dhaaf weydiisto waxyaabahaasna uu joojiyo. Qofka mar walba waa in naftiisa uu diyaariyaa safarka aan la ogeyn goor aad geli doonto. Muuqaalkan intaas ayuu ku egyahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.